khafiifinta shahwada. Spinachka waxaa dhex qooshan aashatada folic, taasoo asal ahaan ka mid ah walxaha uu vitamin B-gu ka koobmo. Waxay badisaa oo adkaysaa dhibcaha shahwada. Haddii heerka aashatada folic uu daciif yahay ama hooseeyo, waxaa hubaal ah in shahwadaadu ay ku adkaanayso inay gaadho ugxaanta xaaskaaga, awoodna ooma leh inay dhex qoosto hal ukun. Xitaa waxaa dhici karta in dhallaankii ku beermo shahwadaas uu si u dhudla yahay. Brokoliga waxaa sidoo kale dhex qooshan aasatada folic, taasoo aan horay u soo xusnay waxtarkeeda. Daraasad la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay in haddii ay nimanku isticmaalaan brokoliga maalin kasta, ay siyaadayso dhibcahooda shahwada 70%. Rumaanka fruutkan macaan wuxuu fawaa'id badan u leeyahay badinta dhibcaha iyo nuxurkeeda. Waa ka hortaga inuu oksijiin isku laalo shahwada, lana falgalo dhacaamada kale asagoo awoodda shahwada daciifinaya. Rumaankuna howlahaas oo dhan wuu ka mamnuucayaa. Waxaana sidoo kale rumaanka loo isticmaali jiray bacriminta shahwada. Mooska ama muuska. Moosku wuxuu qani ku yahay vitamin A, B1 iyo C, kuwaas oo jirka ka caawiya soo saarka shahwo caafimaad qab ah, sidoo kalena siyaadiya fursadda hal-abuurnimo ee shahwada. Sidoo kale mooska waxaa ku jira cunto-shiidaha ama enzymeska bromelain, kaasoo siyaadiya dareerka ama socdaalka shahwada. Ukunta waxaa caadi ahaan loogu isticmaalaa badinta shahwada iyo awooddeeda dareerka. Borotiinada iyo fitamiinada ku jira ukunta waxay unugyada shahwada ka ilaaliyaan inay la falgalaan dhacaamada kale ee jirka, kadibna ay ku dhex milmaan dhacaamada kale ee jirka. Cuntooyinka zinkiga. Cuntooyinka laga helo maadada zinc sida hilibka guduudan, digirta, galleyda waxay door weyn ka ciyaaraan raajicinta shahwada. Maadadan la'aanteed shahwadu waxay noqon lahayd fadhiid. Haddii heerka aashatada folic uu daciif yahay ama hooseeyo, waxaa hubaal ah in shahwadaadu ay ku adkaanayso inay gaadho ugxaanta xaaskaaga, awoodna ooma leh inay dhex qoosto hal ukun. Xitaa waxaa dhici karta in dhallaankii ku beermo shahwadaas uu si u dhudla yahay. Brokoliga. Moosku wuxuu qani ku yahay vitamin A, B1 iyo C, kuwaas oo jirka ka caawiya soo saarka shahwo caafimaad qab ah, sidoo kalena siyaadiya fursadda hal-abuurnimo ee shahwada. Sidoo kale mooska waxaa ku jira cunto-shiidaha ama enzymeska bromelain, kaasoo siyaadiya dareerka ama socdaalka shahwada. Brokoliga waxaa sidoo kale dhex qooshan aasatada folic, taasoo aan horay u soo xusnay waxtarkeeda. Daraasad la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay in haddii ay nimanku isticmaalaan brokoliga maalin kasta, ay siyaadayso dhibcahooda shahwada 70%. Rumaanka fruutkan macaan wuxuu fawaa'id badan u leeyahay badinta dhibcaha iyo nuxurkeeda. Waa ka hortaga inuu oksijiin isku laalo shahwada, lana falgalo dhacaamada kale asagoo awoodda shahwada daciifinaya. Rumaankuna howlahaas oo dhan wuu ka mamnuucayaa. Waxaana sidoo kale rumaanka loo isticmaali jiray bacriminta shahwada.
mooska ama muuska. Badinta iyo xoojinta shahwada. Spinachka waxaa dhex qooshan aashatada folic taasoo asal ahaan ka mid ah walxaha uu vitamin B-gu ka koobmo. Waxay badisaa oo adkaysaa dhibaca